Maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa jirtay tuulo yar waxaana ku noolaa aabba single ah oo lagu magacaabi jiray Jack iyo wiil uu asaga dhalay oo lagu magacaabi jiray Hansel. Jack wuxuu caan ku ahaa magaca Jack the Jolly ay dadka tuulada u yaqaaneen. Jack wuxuu had iyo jeer ahaa qof qalbi wanaagsan. Isagoo wadada sii socda ayaa waxa uu arkay ninkii ayaa yiri, "Oh, Jack the Jolly, ma waxaad u socotaa inaad kalluun soo dabato?" Jack ayaa ku yiri, "Haa, waxaan jeclaan lahaa inaan la dabaasho kalluunka kadibna aan ka soo saaro biyaha." Ninkii kale ayaa ku qoslay wuxuuna ku yiri, "Waxaad tahay qof cajiib badan Jacko, ee maalinta ku wacnaato." Jack ayaa ku yiri, "Sidoo kale mudane." Asagoo wadada sii socda ayaa mar labaad waxay is arkeen gabar waxayna ku tiri, "Jack the Jolly, xagee baad u socotaa?" Jack ayaa ku yiri, "Waxaan u socdaa guriga." Gabadhii ayaa mar kale ku tiri, "Igu salaan wiilkaaga quruxda badnaa ee Hansel." Jack ayaa yiri, "Waayahay, waan hubaa inaan kugu salaami doono." Jack aad buu u jeclaa wiilkiisa Hansel maadaama uu ahaa Hansel qofka keliya ee dunida oo dhan u jooga. Jack si wanaagsan ayuuna u daryeeli jiray wiilkiisa oo weligiis ma uusan dareensiinin maqnaanshaha hooyo. Jack ayaa wiilkiisa waxa uu u keenay cunto wuxuuna ku yiri, "Cun aabe cuntadan ama bahal ayaa kuu imaan doono uuna kaa wada cuni doonaa. Sidoo kale bahalka wuxuu noqon doonaa bahal xoog badan haddii uu cuntada kaa cuno. Ma waxaad doonaysaa wiilkaygiio inuu bahalka kaa xoog badnaado?" Hansel ayaa yiri, "Maya aabe, ma doonayo inuu iga xoog badnaado. Waxaan soo xasuustay markaan yaraa oo la ii dhihi jiray cuntada si fiican u cun ama bahal ayaa kuu imaan doono. Laakiin haddii aad cuntada si fiican aad u cunto waad ka weynaan doontaa oo waad iska celin doontaa bahalka." Markii uu cuntada cunay kadib ayaa Jack yiri, "Wiilkayga Hansel, waa waqtiga aad qubaysan lahayd ee ina keen." Hansel ayaa yiri, "Maya aabe, maanta waa qabow ee ma doonayo inaan qabaysto." Jack ayaa yiri, "Hagaag wiilkayga, haddii aadan qubaysan oo waad uraysaa mana jiri doono qof kula saaxiibi doono. Oo miyaad doonaysaa inaad urto?" Hansel ayaa yiri, "Maya aabe, ma doonayo inaan uro." Maalin maalmaha ka mid ah ayaa Hansel waxa uu cabayay maraq baaquli ku jiray. Isaga oo maraqa cabayo ayaa waxaa ka dhacay baaquliga wuxuuna u jajabay si yaruurac ah. Hansel ayaa bilaabay inuu ooyo maadaama uu ahaa cunug yar. Laakiin aabihiis ayaa si dhaqso leh ugu yimaaday wiilkiisa Hansel wuxuuna ku yiri, "Wiilkayga, inaad oyso gebi ahaanba ma fiicna ee aniga ayaa kuu soo iibin doona baaquli cusub ee hawlwelin." Hansel ayaa yiri, "Mahadsanid aabe." Waqti badan ayaa la soo dhaafay. Hanselna wuu barbaaray wuxuuna noqday nin aad u qurux badan. Qof waliba oo tuulada ku noolaa waxay ugu yeeri jireen Hanselkii quruxda badnaa. Isagoo jidka sii socda ayaa waxaa aragtay gabar halkaa taagnayd waxayna tiri, "Fiiri, waxaa soo socda Hanselkii quruxda badnaa. Tani Mariyaba." "Hey Hanselkii quruxda badnaayo, waxaan doonayaa inaan isla soo cabno xoogaa biyo ah ee ina keen." Hansel ayaa yiri, "Hagaag, hadda waxaan doonayaa inaan aabba sii aado laakiin maalin kale ayaan isla soo cabi doonaa biyo." Gabadhii ayaa tiri, "Waayahay ee aabbahaaga Jack igu salaan kuna dheh hello." Hansel ayaa yiri, "Waayahay, waan kugu salaami doonaa." Jack wuu gaboobay waxaana sii yaraanayay jacaylka uu u qabo wiilkiisa Hansel. Laakiin Hansel aad buu u daryeelayay aabihiis oo had iyo jeer wuu garab istaagnaa. Maalmo markii laga soo gudbay ayaa Hansel wuxuu si dhaqso leh u jeclaaday gabar lagu magacaabo Elsie. Hansel iyo Elsie labadooduba aad bay isu jeclaayeen waxayna go'aansadeen inay isguursadaan. Ugu dambeyn Hansel iyo Elsie waa ay isguursadeen. Jack aad buu ugu farxay guurka wiilkiisa laakiin isagu ma uusan ogeyn waxa ku soo socdo. Ma gabar fiican ba mise waa gabar xun? Bal muuqaalka dhammayso si aad u ogaato. Dhowr bilood markii laga soo gudbay ayaa Elsie waxay bilowday inay la soo baxdo waji cusub waxayna bilowday inay Hansel ka fogeyso aabihiis. Hanselna wuxuu ahaa nin la bedelay oo dhammaan jacaylkii iyo qadarintii uu u hayay aabihiis wuu sii yaraanayay waxa uuna aad ugu sii dhawaanayay xaaskiisa Elsie. Hansel wuxuu hubin jiray inuu fuliyo xaaskiisa Elsie howlaheeda iyo hamigeeda. Hansel isagoo bixiraw ayaa Elsie ku tiri, "Xageed u socotaa gacaliye?" Hansel ayaa yiri, "Waxaan u socdaa aabahay oo waxaan doonayaa inaan soo hubiyo inuu wax cunay." Elsie oo rabto inay Hansel ku dirto aabihiis ayaa tiri, "Oo wax waliba aabahaaga ayaad u samaynaysaa oo aabay aniga dhankeyga oo miyaanan xil kaa saarnayn inaad wax walba ii samayso?"
Hansel ayaa yiri haa dabcan gacaliso xil baa i saaran oo waan kuu sameynayaa halkan ayaan kula fadhiisan doonaa faraxsanaaw. Elsie waxay ku guuleysatay inay Hansel ka fogeyso aabihiis oo waxay doonaysay ninkeeda oo dhan inay nafsadeeda kaliya ku koobnaato. Elsie ayaa waxay ku bilaabtay sodogeeda dhaqan xumo. Tani waxay saameyn ku yeelatay Hansel maadaama uu joojiyay hamiga uu ka lahaa aabihiis. Elsie oo rabta inay isku dirto Hansel iyo aabihiis ayaa tiri aabahaaga waqti kasta wuu hurdayaa oo ma rabo inaan maqlo dhawaqa quuradiisa. Hansel ayaa u tagay aabihiis wuxuuna ku yiri aabo fadlan taxadar lahaw oo miyaadan tartiib u quurin karin. Jack wuxuu dareemay cidlo iyo inuu kasii fogaanayo wiilkiisa Hansel. Jack ma jirin qof uu u sheego dhibkiisa ama uu la wadaago shucuurtiisa ama dareenkiisa. Markii laga soo gudbay sanad ayaa Elsie waxay dhashay wiil ay ugu magac dartay Harry. Jack aad buu u jeclaa Harry wuuna la ciyaari jiray wuxuuna u daryeeli jiray sida uu u daryeeli jiray wiilkiisa Hansel. laakiin Elsie ma jeclayn isu soo dhawaanshaha Harry iyo awowgiis. Elsie ayaa ku tiri ninkeeda Hansel oo maxad gurigan uga burin la'dahay duqan aabahaaga ah. Hansel ayaa yiri ma burin karno maxaa yeelay asaga ayaa iskale gurigan oo waliba waxaan u baahanahay midaan ku daryeelano ama aan ku korsano wiilkeena Harry. Elsie ayaa madaxa kor u taagtay markii ay ogaatay inuu Hansel uu saxsan yahay. Elsie ayaa tiri waad saxsan tahay laakiin waxaan kuu sheegayaa inay arintani weligeed ay sii socon karin. waxaan doonayaa inuu gurigan isaga baxo aabahaaga waliba goor dhow. Hansel ayaa yiri haa waan hubaa gacaliso oo Hansel waa uu ku raacay hadalka xaaskiisa. 8 sano ayaa laga soo gudbay. Jackna wuu sii gaboobay oo waxa uu noqday qof tabar daran. Indhihiisa way madoobaadeen, dhagihiisa way maqalbeeleen, gacmihiisa iyo jilbihiisana way gaboobeen. aad bayna u gariiri jireen oo waa ay jilceen. mana uusan qaadi karin qaadada si dhaqso ah marka uu wax cunayo. maalin asagoo fadhiya miiska qadada ayaa qaada waxa uu ku cabayay maraq. qaadada maraqa lahayd ayaa waxa ugu dhacday good ama mara saarneed miiska sababtoo ah gacmihiisa way gariiri jireen maadaama uu ahaa qof waayeel ah. kadib Elsie ayaa durbaba ku tiri sodogeeda Jack kani waa good ama mara qaali ah waxaana ka soo iibiyay suuqa oo hadeer yaa dhaqaya maradan. Hansel ayaa waxa uu isku dayay inuu dejiyo xaaskiisa wuxuuna ku yiri isdeji gacaliso. Elsie ayaa tiri oo ma ogtahay sida aan u jeclahay marada miiskan. Hansel ayaa si qoto dheer u neefsaday wuxuuna qaatay go'aan ah in laga bilaabo maalinta xigta aabihiisa Jack aanu fadhiisan doonin miiska qadada mar dambe. marka maalinta xigtay waa inuu fadhiiso miiska gadaashiis. Elsie ayaa u geysay raashin baaquli dhoobo ah ku jira laakiin gacmihiisa way gariiri jireen maxaa yeelay Jack waxa uu ahaa qof da' oo waayeel ah. baaquligii dhoobada ahaa ayaa gacantii Jack oo jaraynaysa kasii dhacday oo waa ay jajabeen. Elsie ayaa soo oroday waxayna ku tiri kani waxa uu ahaa baaquli dhoobo ah kaasoo familkeyga ii siiyeen hadiyad ahaan. Elsie oo hadalkii sii wada ayaa tiri waxaad tahay nin oday ah oo ku nool dakhliga ninkeyga oo lacagteena khasaarinaya. laakiin Jack waxba ma dhihin oo waa uu iska aamusay waxa uuna fiirinayay baaquligii dhoobada ahaa ee jajabay waxaana indhihiisa soo buuxsamay ilin. dhanka kale waxaa joogay Harry wuxuuna arkayay wax waliba oo meesha ka dhacayay. Jack wuxuu badanaa ka fikiri jiray markii uu Hansel yaraa waxa uuna soo xasuustay Hansel oo yar oo baaquli jibiyay oo haddana oynaya. Jack ayaana ku yiri markaas wiilkayga sida ma fiicna aniga ayaa ku soo iibin doona baaquli cusub ha ooyin oo waxba ha ka walwalin. Jack markii uu yaraa wiilkiisa Hansel wax waliba wuu siin jiray laakiin hadda markii uu weynaaday Hansel Elsie ayaa isku diraysa Hansel iyo aabihiis oo waa ay kala fogeyn jirtay. Elsie maba daryeelin sodogeeda oo waa ay necbeed. laga bilaabo maalintii xigtay Elsie iyo Hansel waxay soo iibiyeen baaquli dhoobo ah si uu Jack cuntada ugu cuno. Harry ayaa ahaa waxa kaliya ee ka keeni jiray dhool cadeynta wajiga awowgiisa Jack. Harry inta badan waxa uu u imaan jiray awowgiisa Jack oo waa uu ag fadhiisan jiray ilaa uu ka dhameynayo cuntada.
toddobaadyo ayaa laga soo gudbay noloshii murugada badnayd ee Jack way sii socotay. Maalin ayagoo wada fadhiya Hansel iyo Elsie ayaa waxay arkeen Harry oo aruurinaya dhoobo. Elsie ayaa tiri arag sida aan macquulka ahayn uu u ciyaarayo wiilkeena. Hansel ayaa ku yiri wiilkiisa Harry, maxaad samaynaysaa wiilkeygiyo oo guri miyaad noo dhisaysaa? Harry ayaa yiri maya, waxaan qorsheynayaa inaan kuu sameeyo baaquli dhoobo ah. Elsie ayaa tiri baaquli dhoobo ah miyaad noo samaynaysaa? laakiin wiilkeyga uma baahnin baaquli dhoobo ah. Harry ayaa yiri hadda maahan ee markaad gabowdiin sida awoobo oo kale aad ugu siiseen cuntada baaquli dhoobo ah ayaan anigana doonayaa inaan idinkugu siiyo cuntada baaquli dhoobo ah markaad gabowdaan. Mana doonayo inaad iga jibisaan baaquliga fiican, taasi darteed ayaan idinkugu sameynayaa. Tani waxay si toos u taabatay qalbiyada Jack iyo Elsie, waayo waxay ogaadeen qaladkooda. Hansel ayaa yiri Elsie alla maxaan dambi weyn galnay. Elsie ayaa tiri haaga caliye, waxaan ku sameynay aabbo wax aan ku habbooneyn oo waan u naxariisan weynay. Elsie oo hadalkiisii wada ayaa tiri wiilkeena yar indhaha ayuu inoo furay, waxa uuna na tusay wadada saxda ah ee inakeen aan ka toobadkeenno qaladka aan sameynay oo aan si wanaagsan ula dhaqanno aabbo. Laga bilaabo maalinta wixii ka dambeeyay si wanaagsan ayaa loo daryeelayay Jack. Hansel iyo Elsie waxay hubin jireen inuu cunto cunay Jack, sidoo kale waxay hubin jireen inuu had iyo jeer faraxsan yahay oo kaftan badan yahay. Hansel wuxuu wacad ku maray inuu had iyo jeer daryeeli doono aabihiis oo wiilkiis ayaa tusaale fiican u noqday. Wayna fiican tahay in qofka markasta uu daryeelo waalidkiisa markay gaboobaan, waayo iyaguba way ku daryeeli jireen markaad yarayd. Soomaali ayaa horay waxay u tiri waxaad maanta waalidkaaga aad ku samayso adigana beri ayaa wiilkaaga kugu samayn doono. Muuqaalkan halkan ayuu ku dhammaaday. waxaan filayaa inaad muuqaalkan ka heshay. Haddii aad muuqaalkan ka heshay, ha ilaabin inaad ku soo biirto kanaalka Faraxlow adigoo taabanaya qoraalka gaduudan ee subscribe. Sidoo kale aragtidaada nagula wadaag qaybta hoose ee commentiga. Muuqaalka xiga waxaan u rajaynayaa anagoo faraxsan oo caafimaad qabna oo isu xisnay inaan soo laabano. Mac salaama.